Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan wanaagsan daawada meel walbo aad naga daawanayso kusoo dhawaad qaybtii afaraad ee sheekadii jar isku xorkii yaraa. qaybta saddexaad ee sheekada waxay inoo joogtay geerida foosha xun ee ay ka nabad galeen. qaybta afaraad sheekada waxay inoogu bilaabmaysaa sida tan. haddaba markii hawadii ay hagaagtay ee dunidii xasiloonaatay ayaa waxa u suurtowday wiilashii in ay arkaan meesha tan oo maqaadiirtu ku soo turtay sida ay tahay waaba lamadegaan aan weynigiisii la qiyaasi karin oo ka samaysan baraf isqabtay geeska gees. markaasay tale isku soo koobtay oo arrinkoodii mur iyo yaab noqday, waxayna garan waayeen wax alla waxay ku tashadaan. waxayna yidhaahdeen waa amuur la yaab leh, waana baraf oo dhan walba yaala. iyaga oo markaa walwal iyo dhabanahays ku jira ayaa waxaa sheeda ugu bidhaamay shawlad markab ah, waxayna markaa xaqiijiyeen in ay bad u dhow yihiin. hase yeeshee intaanay kaba fikirin badda u dhow iyo markabka bidhaantiisa muuqato ayaa waxay maqleen codad meel aan ka dheereen ka soo baxaya. isla wax yar dabadeedna waxaa barafkii dhexdiisa ka soo baxay guuxa dadka iskiimowga oo sita leebab iyo midiyo. kooxdu qunyar ayay ugu soo dhowaadeen iyaga oo caray iyo colaad indhahooda ka muuqata. wiilashii ayaa intay baqdin iyo anfiriir galeen midba mid isku maray, markaasay xaggii badda jalleecdeen. hase ahaatee markabkii shawladiisii muuqatay wooba qarsoomay, ilaan muuqaalkiisuba wehel buu ahaa. waa iyagii iyo qarfadda cidlada iyo ciirsala'aanta ah. nimankii iskiimowga ahaana qunyar iyo digtoonaan ayay ugu soo dhowaanayeen. inankii anwar ayaa nimankii hoosta ka tiriyey, waana 21 nin oo dhaadheer oo xoog weyn oo ballaarka garbahooda aad yaabayso. intooda dhallinta ahna mid keli ah oo nimankan iskiimowga ah dhirir iyo dhumuc uga dhigma ma jiro. markaasoo isaga oo naxsan is yidhi, talow maxay nimankan noo malaynayaan inaannu nahay, maxaase ay naga doonayaan? su-aashaas oo kale mid walba oo saaxiibadii ka mid ah madaxiisii ayay ku wareegaysay. sidaa oo kale ayaa duuliyihii siraajna oo u yaabanaa oo boqolaal su'aalood isweydiinayay. dhammaantoodna ma jirin mid jawaab isku qanciyey, hadalna meeshaba ma oolin. xaalkii qaraaraa ayaa cabsi soo food saartay gebigood. dhib walbase waddo lagaga bax lama waayo, ileen cali ayaa asalkiisii hore iskiimowga ahaa oo aad u yaqaana caadooyinka dadka dhulkan dega. markaa intoo si dhiiran colkii soo socday ugu dhaqaaqay ayuu bunduqii oo gacanta ku hayay dhulka ku tuuray. dabadeedna intoo labada gacmood madaxa saartay ayuu ku hadla afkii iskiimowga oo yidhi, waxaannu nahay dad walaalihiin ah, wax colaad ahna uma soconno, midiyana ma sidanno. sidaana cali wuxuu ku muujiyey inuu yahay nin caadooyinka dalkaasi si fiican u yaqaana. markay nimankii arkeen cali wuxuu yidhi oo ayna maqleen ayuu durbo wejigoodii isbedelay oo ay indhahoodii ka muuqatay in uu is-afgarad soo dhow yahay. markaasuu dhowr iyaga ka mid ah u soo dhowaaday cali oo isdhinac taagay kana waransiiyey una waramay. intii kalese digtoonaantoodii ayay ku taagnaayeen oo inamadii kale ayay isha ku haayeen, iyaga oo weli uurkoodii waswaas iyo kalsooni la'aan ku jirta. iswaraasigii cali iyo nimankii iskiimowga ahaa muddo aan yarayn ayuu socday. kolkii oo dhammaaday baa la aamusay. nimankiina xasiloonaan iyo kalsooni ayaa wejigoodii ka muuqatay. arrintiina waxay hadda u ekaatay in iyaga iyo cali go'aan gaareen. dabadeedna kii ugu jooga dheeraa ugana garka weynaa ayaa intuu u soo dhowaaday cali oo warankii oo sitay cali hortiisii ku tuuray, wuxuuna yidhi, waxaannu nahay saaxiibadiin, midiyana ma sidanno, magaceygana waxaa la yidhaahdaa naajoog. markaa kadib raggii iskiimowga ahaa ayaa wiilashii kale ku soo dhaqaaqay. calina intuu saaxiibadii ku soo cararay ayuu isaga u digaya yidhi, iska jira inaad nimankan gacan qaadaan. hadday midkiin la hadlaana kaasi waa inuu sheegaa magaciisana yidhaa, waxaan ahay saaxiibka, midina ma sito. waayo intaas waa oraahda kalgacal ee isku salaamaan iskiimowga. intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii afaraad ee sheekadii jar isku xorkii yaraa.